إيمانك شيء قراء لقو قبائن الرحمن كقول كيف ما سور مقايبة قول كيف فردوسية شنو قورسا وليجية قانقار هدي آتيهين قراء لقو بيري وحيجينا قيمها كسوغن قورسي كإلاشا قرآنك يسنها الله يسكول ريان لك لقادن قادا ديقودا نبرتي يسيدا وحلوقيحو أو تفسيرك واللقو قيافر قلوبتينا قياما حقي ساد أوان لوق القلياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم ما بعد قال الله تعالى وسورة البقرة آية اللحاد بين كبل آبنا قال الله تعالى إلهي وحور إن الذين كفروا كوي قالوا لي سواء عليهم يقوا حيسكم ذا أأنذرتهم إن أددكتو أم لم تنذرهم إينا نددك ويسكم لا يؤمنون الرمين مايان ختم الله إلهي وحد ضبالي دم كدقي على قلوبهم قلبي ذودي وعلى سمعهم يبقى الكودي وعلى أبصارهم إنده دين وحصارا غشاوة ضبال أي الدم كواه ولهم وحي إليهن عذاب عظيم عذاب وين بيليه مركا انتا صوت الله قادين عذاب كاسو إلهي ودياري dadka adduunyadan ku noolay waa laba qaybood quraankuna markaa wuxuu u yimi dadka uu la hadlayo inuu xaqiiqadooda iyo qaybahooda inooga warramo qaarkoodna waynu ku dayan qaarkoodna waynu ka fogaan laba qaybood bay ku soo ururayaan oo gaaliyo islaam labadaas markaa aynu ka soo warrano aayadaha hore Ilaahay inoogu soo sharxay dadkii muslimka ahaa iyo sifooyinkooda ama muuminiinta iyo tilmaamihii ay lahaayeen shan aayadood baynu ku soo arag gaaladii baa waxay u sii qaybsameen laba qaybood mid xumaantiisii iyo gaalnimadiisii la bareeray oo iska cadaystay oo kaafir la yiraahdo iyo mid kale oo fulaynimo ay ku jirto gaalnimo iyo fulaynimo iyo naxli buu isku darayo gaalnimadii baa ku helan oo uu qarsanaya dadka wuxuu muujisanayaa islaamnimo iyo wanaag laakiin gaalnimo qarsanaya marka labadan aayadood ee soo horeeya waxay Ilaahay uu kaga warramayaa gaalkii gaalnimada muujistay iyo tilmaantiisa foosha xun uu leeyahay iyo waxa jawaab u ah Ilaahay ku abaal marinayo dhowr iyo 10 aayadood ee soo socda taqriiban ilaa 13 aayadood ee soo socdaan منافق أما منافقين أي إلهي حالته ذو كورمية تاسو مركا كو موجينيسو كو عدينيس مر والبا قفك خطرت بدنين مدنيه إن آد لو قديقو وسدا إنو سو حسين يهود با قرآنك سورة إن بدن إلهي وقهد لي منافقين آد بو قرآن كو دقدقايو تلمامه سيوغا ورمايو دورية 10 آيادو منافقين تيبي صوابا دقايا مواقفتooda iyo aragtiyahooda iyo murankooda iyo gaalnimadooda waanay mudayn oo wixii had iyo jeer ku muuqda de waad iska arkaysa cadawga muuqda waad arkaysa libaax ciya iyo libaax aamusay kala sheegeen Soomaalidu ka ciyaawaba ku ogeysi laakiin kan aamusay hoostun ka soo galay mar qura kulliqaya ka u darani waa innal ladina kafaru kuwi gaaloobay كفرق أي قال لماذا وحلا إلى هذا بمعنى كفر بمعنى ستر وأستري وحن أستر من بقال كل سكدين وأستره وحقه يفتيما يسد قرح ذا يفتيما زاد رادد بوح الله ما عينه بحنينا وحوي قالك وحق طبال وحسكدية حق يوم مقدين الضبالة أو قريه وكاس أي فربنا يسكت ديان ليطفئوا نور الله بأفواههم أفكار لقوا بختينا يا فعل كان لقوا بختينا يا لكن ما بختين إن الذين كفروا تيئيس بايل هاو سمينيا قوس وكقوسنا يا dadku mar haday mowqif ka qaateen halka ay taageen Nabi Maxamed iskaga qoos hadaad u digtay hadaanad u digin ba waa isku mid iimaan male dar Ilaahay og yahay oo isagu ka warkeenay way waxa marka aayadu ay cadaysay hadii ay dhacdo dadku inay talaabada qaadaan oo diinta ay ku gacan saydaan ay diidaan
oo wacdigiiyo waanadu ay mari weydo cilad baa jirta ciladaas waa maxay ilaahay baa cadeeyay khatama allahu calaa quluubihim wacalaa samcihim wacalaa absaarihim gishaawa qofka aad aragtay in xaqu mari laayahay wuu xidhan yahay wuu qufulan yahay khatmigu waa dabool waxaa ilaahay ogeysiinayaa uu ku shabahayaa weel la xidho la daboolay oo kale marka qalbigii waa weel walahu madaarig wuxuu leeyahay waxyaabo wax u soo qabta wax u soo qabta buu leeyahay waa araggii iyo maqalkii labadiiba way xidhmeen diin la-aantu waxay leedahay dhega la-aan iyo indha la-aan marka qalbigii iyo meelihii wax u soo qabanayaba way xidhmeen taasaa waxay ugu wacan tahay inay xaqan jeclaan waayaan rumayna waayaan walahum cadaabun aliim natiijadii weeye cadaabkaa kulul walahum cadaabun cadiim cadaab weyn ayay leeyihin marka aayaadku fawaa'idka ay leeyihiin waxaa ka mid ah qofka bani aadamka ahi marka had iyo jeer waanadu ay anfici weydo waa inaynu garannaa inuu bukaan yahay cudurka u weyne qofkii ku dhacaana waa iimaan la-aanta marka bukaankaa waa in caafimaadkiisa uu raadsadaa kol hadduu dareemo waanada iyo waxsheegu inaanay wax macnaa u samaynaynin bukaankiisu wuu weyn kolba qiiradiisu iyo jibadiisu intay la-eg tahay ayaa ama haddii lagaba waayo dee qof buu ka weyn maxalulwacyi lquluub meelaha dadku waanadu ay ka saamaysaa waa qalbiga waxyaabahaynu ka faaidaysanayno waxaa ka mida qofka bani aadamkaahi marka had iyo jeer isagu uu doorto xumaanta ilaahayna wuu usii badiyaa sidaa ilaahayba oo aayadda ku caddeeyey falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya waa qofkiioo sii durkay oo sii fogaaday qaala allahu tacaala wa min annaasi dadkii waxaa ka mida baa ilaahay uhi man yaquulu mid odhanaya aamanaa billaah ilaahay baanu rumaynay wa bilyowmi alaakhir maalinka dambe aakhirana waanu rumaynay wamaa hum bimu'miniin kuwa iimaanlana ma aha waa munaafiqiintiiba halkan tilmaamahooda ilaahay uu ka bilaabaya suuraddan baa jirto suuratu lmunaafiquun la idhaahdo suuradaha aada uga warramay ka mid tahay suuratu albaqara wa suuratu nnisaa wa suuratu tawba tilmaamaha munaafiqiinta markaad doonayso munaafiqu mar walba wuu joogaaye halkaasaad muraayadiisa ka daawanaysa warbixinaad heshanata ilaahay baa ugu wanaagsan subxaana wa tacaala munaafiqiintu cahdigii madaniga ama waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam madiine uu joogay ayay soo bateen haybaddii iyo awooddii dowladnimee jirtee wakhtiga ama dowladdii islaamka asaasantay ayay inay waajahaan ay ka hor yimaadaan u badrheeri kari waayeen islaamnimona way iska muujisteen gaalnimona way qarsadeen wa min annaasi man yaquulu aamanaa billaahi wa bilyowmi alaakhir way ashahaadanayaan haddana mu'miniin maaha marka aayadda waxay noo caddaynaysaa in afka uun laga ashahaataa oo aanu qalbiga gaadhsiisnayn iimaan lama yidhaahdo qof afka ka ashahaadanaya ayaa haddana loo qiraya inaanu iimaan lahayn kol haddii aanu camalkiina lahayn caqiidadiina lahayn rumayntii ma laha ficilkiina ma laha waa shahaado keliya waa kaa ilaahay ku diiday subxaana wa tacaala marka aliimaanu maa waqara fi lqalbi wasadaqahu lcamal qalbigu ku sugmaya qowlkaa laga dhawaaqaya xubnahana waa lagu muujinaya nifaaqa ama munaafiqnimadu marna waxay noqotaa caqadi oo waa qalbiga qofku gaal ka yahay marna qofkii waa qof islaam ah laakiin dhaqankiisa qalloocan oo astaamihii iyo calaamadihii munaafiquu leeyahy nifaaq camali baa la idhaha waa ka nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu doodaya hadduu baadil ku doodo markuu warramaya hadduu been sheego markuu ballan qaado hadduu ka baxo waa nifaaq aayat lmunaafiqi halaaث riwaayooyinka qaarkoodna dee afar bay sheegaysa marka qofkii baa shahaadanaya hadduu dhaqankaa leeyahay oo dee qof mumin oo ilaahay rumaysan nifaaq camaliya wey oo camalkiisii way xumaynaysaa way naaqusinaysaa cibaadadiisii iyo wixii waday oo dhan oo diintiisii oo dhaawac gaadhay weeye laakiin haddii uu qalbiga gaal ka yahay khalaas wuxuu afka ka idhaahdaa waxba uguma fila
يخادعون الله إلهي بخيامين يا والذين آمنوا يددك مؤمنين تهانا وحيس كديانين خياميان وما يخدعون ما خيامين يان إلا أنفسهم نفههم بخيامين يان منافقين وما يشعرون ما نقرن يان خداع خيامة وحا لا يرادا قفك او wax wanaagsan muujista waxuna qarsanaya طبعا iyaguna oo sida marka ilaahay ma khiyaameyn karaan subhanahu wa ta'ala laakiin marka islaamnimo muujisteen inaguna aynu daahirkiiyo muuqaalka xukumayno ee dilkii iyo xoolahoodii oo laga qaada aynu ka daynay ee ilaahayna aanu oranin hal laayo waxa isu dhiganba niman ilaahay khiyaameeyay oo rasuulkii khiyaameeyay oo muuminiintii khiyaameeyay oo muraadkoodii xumaa ku ceeshay ayay ka dhigay laakiin ilaahay lagama hoos tuso lamana khiyaameeyo subhanahu wa ta'ala naftoodu bay khiyaameynayaan mana garanayaan ha qofka bani aadamka ay hadii uu xumaan sameeyo dibku isagu ku soo ururaya dhinacna uma dhaafayo wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun alla wuxuu wala yahiqu al-makru sayyi illa bi ahli qofku haduu xumaan iyo shirqool sameeyo isaga ayaanay dhaafayna ay ku koobanta fi qulubihim marad qalbigooda cudur baa jiifa qalbigooda cudur baa ku jira فزادهم الله مرضا إلهينا عذر كلو كرني ولهم عذاب أليم عذاب كلول بيلي بما كانوا يكذبون بين انت حق بينين درادي عذر كداو نوعية بدنية عذر شركة كدعة يمثل روح كدعة عذر كودا نواكي قلبي جاي روح كدعي هبا يسكع عضاضي هبا يسكع حوق وينادين هبا يسكع في مشارين بها هذا صدق القرآن كإلهي كسفي ونمن حوق بدن بها هذا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم لكن هدنا عذر كي دلاغا هابا هيو قال لما قلبك كبوكا هدي قفك وقلبك عافمات قبا عذر كشرك وحبا ما ياله استقبل كيس آخره أجري وحكوها ليا عذر كشرك تهابا المريب بكيها ليا مصيبة waxay aayadu cadeynaysaa qofka bani aadamkii markuu xumaan doorto ilaahay inuu si kordhinayo macsiya ku dhiibtaa macsiya hadda dambi ku dhacdo mid kale ku sii dhibaysa sida ay xusaysay aayada hore aynu soo akhrino وإذا قيل لهم مرك لقول هذا منافقين لا تفسدوا في الأرض للكها حميننا قالوا حيليه إنما نحن مصلحون أنه وحنا يكوها قاتشنا ألا إنهم يجو المفسدون وأكوه خربا ولكن لا يشعرون ما قرنين لقن كمنافقين تأيه هذا اللذوذ إلى هاي بين برا سبحانه وتعالى منافقين تا وقت جدا بقى إن كوبان وهبل الله قاعيمي لكن سيقود وقت جه راح بلوجا مشي وشدد وحوي مواصفات كيت المامة دي هبل لبرجع الشيء لها القرآن كهبل هبل لقوا لها ضد بدني وحي وفهم لها على مدها المنافق نمد وني هبل لذا سمك كورني ووحي أران لها على مدها برجاس ضد كاسالها منافق نمد نية المامة هذا كواسة كورني القرآن كمركا وحشرح يا وصاب بندقيا تلمان تعيدي لجهلا عذر كوي قبطه بلو فيرس منافق قالك isagoo dal iyo dad ba kharibaya ayaa wuxuu sheeganayaa inuu wax islaaxinayo hagaajinayo laba arimood waa mid inuu arkayo waxan inuu xumaan yahay oo dabeetana uu canaatamayo uu ogaan u doonayo dadka inuu haleeyo iyo inay basba ka tahay walaakin la yashcuruun oo isagoo jaahila uu soo haystay inuu saxan yahay isagoo khaldan uu soo haystay inuu xaq ku sugan yahay labada arimood bay noqon kartaa وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يا أورانيا نبي قا أورانيا أصحابته أورانيا عدي وناق وطا أورانيا ولوك خربين لوك محل لقوا خربها لوك وحل لقوا خربها قال لماذا يا منافق لماذا كوكا قفكو هاتو قال لما والله ده وحبان مصلح من نقون كرا هرمر ما كيني كرا وحرمرها وكيني كرا هبا كدوده مجرو دلك يا ددك يا دنيدو يا حيوانك waxa uu horeeyay kharabiya abaaraha ku keena cudurada ku keena carada alla keena
وحوي إلهي والدين سبحانه وتعالى قالوا إنما نحن مصلحون بل قال ذا وربحين تيسمين يا وربحين تودوا وحول الأول أكسنبا النجا عليه وحول الأول أكسن النجا عليه وح حقه ذا كسوف لا وح عالمية وح فيعا وح حرمر له وح البحر ملأ إنما نحن مصلحون وي لكن جوابت لهي بحيبة عجيبة ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدح جربوا أي آيات أدقتها إرجع ألا أتكام بتسنيا إنذو أتكام بتسنيسا ضمير الفصل يا هم صدح جربا إلهي وأتكية إني كواسيهين كوا وحخربية سيدو إلهي وجوابية سيدي هذا الكوين هذين باكر الدول حتى يقولون لها يعني حصري وشرع لكن حصري قوة اسمها مد شاملة أو مد ناقص حتى يقولون لها يعني إنما نحن المصلحون وعلى كتير الهي معناه هو نقول لها ضدك وحاجاتي وأنا قوم سيدا بكومتها الله مدام المصلحون النكرته وحيوتها الله أنك حالة ضيض عدك لك كمان ورميني وين أنا وحاجاتي dadka dhan anagu baa xagaajina maaha laakiin waxay leeyihiin anagu dhaqankan hadda leenahay ifsaad maaha waa islaax toodun bay ka jawaabeen ilaahayna tuguud buu ka jawaabay oo waxa uu innahum humul mufsidun hadaad mufsid doonayso waa iyaga cidda kaliya ee wax islaaxisa inaana iyaga ahayn ba hadalkooda laga fahmay laakiin halkan waxa laga fahmaya cidda kaliya wax fasahaadisa wax kharibtaa inay tahay diin laawayaashiya munaafiqiinta oo halkii muslixuuna ay ka ahayd mufsiduuna kama ahayn marka waa almufsiduuna marka la isku daro munaafiqiya gaal kuwa wax khariba waa kuwaasuun ala innahum humul mufsiduuna walakin la yash'urun halkii hore waxay ahayd la tufsidu fil ard tana way ka sii xeel dheertay dalka kharibayaan oo dadka kharibayaan oo wax walo ilaahay uu doonay inay ummaddu ku badbaadada kuwaas way ka kharaabiyeen marka sidaasi baa quraanka kariimka ilaahay uu inooga digaya khatarta ay leeyihiin dadka aan diinta lahayn had walbana calaamadaha lagu qiyaasaya waa kuwa quraanku ina baray mawaaqiftoda iyo aragtidoodu waa inay isla saxan yihiin oo isla toosan yihiin oo xumaantu ay la wanaagsan tahay oo ay xayeysiinayaan marka ilaahay baa tilmaanta laga qaadanaya iyaga laga ma qaadanayo wabillahi tawfiiq wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان